nolosha iskaabulannimada waa mid adag oo la soo wada maray waana marxalad kala guura abwaan khaliif muuse samatar abwaan sanyare oo guurkiisa kadib muddo ka badan 20 sano reer la'aan ahaa ayaa iga sheekeeyay nolosha iskaabulannimada iyo caqabadaha ku xeeran nolol aad iyo aad u cajiibsan nolol aad iyo aad u qalafsan nolol ayna bulshada nin soo maray maahana ayna la dareemayn baa horta haysta taasoo ah saaka gogoshay aad ka kacday oo aad caawa u soo hoyato iyadoo sidii ah oo wax kaa xaaqaya wax kaa hurgufaya wax ku dhaqaya midna aysan jirin midda labaad iyada oo wixii xanuuna ee ku qabsada ay kali kugu noqonayso inta badan aad 80% iskaba qarsan waayo ilaa waxaad u sheegataba male midda labaad iyada oo wax dhar ku dhaqaya wax cunto kula diyaara wax warbixin yaani noloshaada ku weydiinaya aysan jirin oo ah wax adiga kugu gaara dib adiga kugu gaara marka waa nolol qofkii soo maray maahan qof kale hadii looga sheekeeyo ay dib ku noqonayso sidii uu yaani maartay ku aamini lahaa inkastoo sanyare uu ka deeriyay noloshaasi balse Axmed Daahir Jaamac oo laftiisa xaaladan ku sugan ayaa ii sheegay inay fiican tahay iskaabulannimada isagoona sababeeyay way fiican tahay habro waa dhimeelan sanyare gooshi baa lagaaga dameeyay waxaas aqriyay abaan ayaan ku halqabsanay cidhiidhi bay kugu dilay kolka iskaabulannimada wax ka fiican male iskaabulannimada ka fiican waxbaan hagaajinayay tiraabay ku kala wada qofiyo يا هادونا بيل بكويدين وحو واسكابلو وليغي كوراغ وليغود بايلا دغالما وليغي اسكابلان hadana ahay qolkiina galon baana waska celiya haddaba iskaabulannimada keebay u daran tahay qofka rag iyo dumar midku doona ha noqday guur soo maray iyo midka carcartiisa qaba waa kan mar kale abwaan khaliif muuse samatar sanyare oo ka sheekeeyay iskaabulada dhalinyaranimada waxa weeye iyadu dhibkeeda dib saasa ma aha iskaabulada asalka ah oo dibka wadata waa ninku markuu soo maro xaas iyo reer kadibna uu iskaabulo noqdo markaasa dhibaatada oo dhan uu dareemaya marka inta sano aan hadda ahaa iskaabulada waxa weeye 100 sano waa iga badan tahay dhanka kale waxaa jira caqabado ay la kulmaan bulshada iskaabulada sida ka warqab la'aan daryeel xumo dhanka gogosha cunada iyo kalinimo raashin baa xaafada ii keentay xaafadii markay ii keentay raashinkii oo anigiina aan aad iyo aad u caadsanahay nin waxa weeye iskaabulannimada aan saliid la marinayno la tuutuujinayno waxba la marinayno bisaarad saarantahay baana anoo indhaha isku hayo oo faraxalan baa waxaan damcay raashinkii la keenay daboolkii intaan saa ka idhi baan gacanta gali maagay gacantii intaana gelin baan haddana isa siinamay muruqii iyo dhibaatadii haysay iyo sida u jajabnaa mar labaad baan soo kacay oo gacantii baan idhi raashinkii geli midha xabada yaryaroo hilibaa ku dhex jiray ilaa misad baa dhex fadhiisatay raashinkiiba saxan weyn buu ahaa saadaan gacantii u galiyay ma bisidii dhabarka meeshii aan lahaa yaani maartay antuugo isku daya badan oo aan sameynay ayaa noo suuragelin in aan la hadalno qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed oo codkooda ka dhiibtaan arrintan iyagoona ka gaabsaday balse waxay siyaabo kala duwan oo toos ahayn u muujiyeen in nolosha iskaabulannimadu ay tahay mid adag isla markaana uu garwaaqsanayo qofka ka baxay iskaabulannimada oo reer yeeshay rag iyo dumar midku doona ha noqde dhibaatada ay leedahay gurigii oo ka kacday saaka oo isagoo sidii aad u timid oo yaani gogoshii meeshii aad kala dhigtay ay u kala yaalaan adiga oo yaani xanuunkaagii wax kula kaalmeynaya ama aad u sheegato aysan jirin adiga oo waxaan ku ri nin la iloobay amal ah adigu waxa tahay qof macnaa jismigiisii jooga laakiin noloshiisu ay cajiib tahay gogoshii oo aan ku diyaarsano saaka kaga timid ah noloshii oo ah qof yaani ku yaani maartay ku xusuusan oo kula socodaysan jirin waxaagu inaad dagaal qaado waa soo socday inaad dagaal qaado oo ebelow ama wax siisaan aad dariska ku tira dharkii
inaad adigu xilligii aad haleesho aad dhaqato waxa laga yaabaa shaati iyo surwaal aad qabto kaliya inaad maartay wixii kale aad xusuusane shaatiga uun biyo inta dhex geliso. Maxamed Baaruud Xuseen wararka STN Dadaab.